بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر عليه إن شاء الله. كلن كان كوبا وحان كفر فرانينا دعو oo ilaahay aan weydiisanayno inuu nawaafajiyo maalmaha tobanka ah ee soo socda oo ah maalmaha ugu fadli badan maalmo ahaan maalmaha ilaahay uu abuuray. maalmahaasi aan xusuusinaynaa walaalaha meel kasta ay joogaan, kuwii dhegaysanayo, kuwii daawanayo, iyo intii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tawfiiqa waafajiyo. maalmahan tobanka ah waa nicmo waaye oo qofka inuu ku duceysto ee tahay inuu ilaahay uuna soo gaarsiiyo. nicmooyinkaasi waa sheegayna maalmahaasi ku qarsoon, laakiin marka hore ilaahay waxaan weydiisanaynaa, waxaan leenahay ilaahow inteena na dhegaysanayso, inteenna na daawanayso iyo ahlu khayrka meel kasta aad joogtaan, ilaahow maalmahaasi tobanka ee soo socda ilaahuna waafaji. waxaa la filayaa maalmahaasi tobanka inay ka bilaaban doonto axadda soo socoto, haddii habeenka axadda soo gelayso bisha la arko. marka maalmahaasi tobanka axadda marka laga bilaabo ilaa waxay soconaysaa maalinta ciidda ee tobanaadka ah oo talaadada ku beegan markaasi. maalmahaasi tobanka maalmood waa maalmaha ugu khayrka badan, haddana waxaa ku jirto maalin ugu khayr badan maalmaha ilaahay abuuray oo dhan. tobankaa ugu khayr badan, haddana maalin ayaa gooni kasii ah tobankaasi. maalintaas waxa waaye maalinta isniinta, hadduu ilaahay uu qadaro in axadda soo socoto ay noqoto maalinta koowaad ee bisha dilxaj. maalinta axad waa 8, isniinta dambe markaasi oo ah 9 waa yooma carafa. iyadana fadligeed waa tilmaamaynaa. marka qofka mu'minka ah waxaa lagu gartaa ayaa la yidhi sida dadka businessyada oo fursad gaadayaal waay. dadka businessyada leh ama maalan kasoo qaad oo kale dharaad gadaa, dharka aad gado nooca waxaad gadaa oo dharkan oo la gashto waqtiga qaboobaha. kasoo qaad maraykankaa joogtaa, waqtiga qaboobaha oo kale dharkiisaad gadaa. marka waxaad samaynaysaa fursadaha dadkaasi dadka ay gaadaan waxaa ka mid ah maalan waqtiga qaboobaha oo kale uu qofka uu isku diyaarinaya, ama intaan la gaarin ka hor uu dharkaasi uu diyaarinaya. marka fursadda waxaa kaloo ka mid ah fursad kasta uu helo maaragtay inuu dharkaas ku gado oo inta ugu badan uu suuq geyn karo oo kale uu suuq geynaya. qofka mu'minka saas oo kale waaye, wuxuu raadinaa fursad kasta oo camal hadduu sameeyo camalkiisa uu ku janno tagayo, ilaahay uu ku cafinayo, ilaahay ugu dhowaanayo, ilaahay uu ku jeclaanayo, fursadaasuu raadinaya. marka fursaddii aad raadinayseen ahlu khayrka i dhegaysanayo iyo ahlu khayrka i fiirsanayo, waxaan rabaa inaan idinkuugu bashayo fursaddii aa soo dhowaatay. maalmo koobanaa naga xigto, maanta waa khamiis, jamco iyo sabti aa naga xigto. haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka sida la qiyaasay axadda ay noqoto, hadday noqon weysana isniinta ay noqonaysaa. marka caalamkaad ka ogaan doontaan bisha maka haddii laga arko, taasaa dilxaj la raacaya oo laysku waafaqsan yahay, sababtoo ah acmaasha xajka waxay ka dhacdaa maka ama waxay ka dhacdaa maaragtay sacuudiga saa ula socotaan. marka sacuudiga haddii laga arko maalintaas taasaan ictimaadaynaa hadduu ilaah yidhaaho. nabiga calay salaam xadiis ayaa wuxuu yidhi maa min ayaam, ma jirto maalmo, wuuba ka soo reebay maalmaha adduunka oo dhan. anaha alcamalu alsaalixu afdalu fiiha oo fiihina wa axabu ila allah min hadihi min alcashr oo kama qaala nabiy calay salatu wasalaam. maalmo la sameeyo camal saalix ah, maalmo ka fara badan, maalmo ka fadli badan, ka khayr badan ma jirto maalmaha tobanka ah. asxaabtu way yaabeen marka
sababto waxay ogyihiin camal waxaa jira rasuulka uu u sheegay oo ilaahay uu jecel yahay oo islaamkana lagu tilmaamay meesha ugu sarayso acmaasha inuu ka jooga camalkaasi waa camalka jihaadka marka isla markiiba way soo boodeen waxay yidhahdeen wala aljihaadu fii sabiili illah yaa rasuula allah wala aljihaadu oo jihaadkii oo aad ammaantay oo ugu khayrka badnaa xitaa makana ka fadli badan camalka maalmahaas la sameeyo markaasaa rasuulku wuxuu yidhi wala aljihaadu xitaa jihaadka markaa rasuulku wuxuu ka soo reebay wuxuu dhahay ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maalih walam yarjic عنها من ذلك شيء وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وحير الجهاد كحتا وحا كفضل بدن أعماش مالمها طبنك للسماية طبنك صوص عضان نوع دونتها هاتي أعماش للسماية جهادك كفضل بدن هاي مركا لقريبو قف بحي نفتيس الله بحي مالكي سقاتي إنو كو جهاد قاله أو وحبا أنا كسو نقوم قف أن صلى الله معناها قف شهيدي قف شهيدي لكن ده جهاد آدو أو آد صلى الله ولي آد ناشهي ولي وحا كافل بدن أو كأجر بدن طبعا كاسم الموت قفك أعماش خير كاسمست بشيء دونا شن عمل أو آد لو أماني طبعا كاس وحانا كل بالله يا حديث وحاجر إمام أحمد أوري حديث كهروا صحيح ونشيء حديث حجر الإمام أحمد ويري مالمهن طبعاً مالمك خير بدن مجرانه رسولك عليه الصلاة والسلام إمام أحمد سوري حديث كاس وحده مالمها طبعاً ذي الحج مالمك خير بدن مجرانه أكثر فيها بالتهليل والتحميد والتكبير وحاد بدي سامال مها سأفكينا وحاد كعل علسان عرب كينا بالتهليل معناه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والتحميد بحوالي الحمد لله الحمد لله الحمد لله وحكى لها دين مع المهاس والتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محاوى معنى هذا إلهي سبحانه وتعالى كرية أي معبود حق أو غير كيس لما عابود أيو وحملوي ديسان أيو لما تلصاران أيو لما هوس إيمان أيو ليسو ديب أيو إلهي كرية ليسو ديب أيو عد كسرية سمالهن إلها سرية نوعة سرية إلها منسقام إلها ضد وحكا ليكوت المامن لكن إلها سرية العلي مقعيد سوا منسقام إلها سبحان الله معناها سبحان الله حوالي إلهي منسقامة واي منسقامة مركاسي وحاكون عليسا ديغريغاس وركو اسكتو صالوا ديغريغاس كريمها أذكار ودن أكون عليسا أذكار ودن أيتكون عليسا كو شيخ النوبل لو دي وحاد هذه معلمها شن عمل أيا آل الله أماني نو شيخ كو ذكري نبي قال نو شيخ عليه الصلاة والسلام لبا أعماش وخير كبادر معلمات وحواي القرآن قراءة القرآن قرآن كأخرسكيس صلى رسولك عليه الصلاة والسلام أيا نو شيخ وحلو قلنا واقع وذكري ذكري وجود قرآنك ذكري هو سمعنا ذكري وعام لكن خاص كسي قرآنك كلامك إلهي سبحانه وتعالى كلامك إلهي سبحانه وتعالى رسولك عليه السلام حديث صحيح أيا وحو نو شيخ حرف كريه هداد أخرسه إلهي سبحانه وتعالى حكسينا 10 حسنات كورن هداد 6 جزء ما ننتهي برلميسو طبعا كمالود ما يقين نغنيسا وقرآن كورن آيات لميسا تاسا وقفة ضبطنا هنا علماء ما ننك 6 جزء آخر سيوك لا آخرين نساء مرك هداد آخرين كرتو هبينك هل جزء آخر ما ننت رحمة الله هداد آخرين كرتو 6 جزء 6 وقت وكلا قيب حتى 6 وقت وكلا قيب حمد جيدا لبا waxaad ka dhigtaa maanta gelinka hore ee maalinta sida fajirka kadib oo kale haddana duurka kadib dan cishaha habeenkii waa quraan kariimka rasuulku markuu sharxayo quraanka fadliga uu leeyahay wuxuu yiri la aqulu alif lam mim harf ana alif lam mim hal harf waa idin ma dhahayo alifun harf wa lamun harf wa mimun harf saasoo dhahay alifku waa harf marka waxaad
haddaad dhamayso qur-aanka oo 6,000 ka badan markaad ku dhifato 10 markaad ku dhifato halkii xarafba 6,000 oo xarafba qur-aanka kariimka ilaahay subxaana wa tacaala hana waafajiyo waxa waaye malaayiin xaraf waaye raali ahaada ana 6,000 ma ahayd malaayiin oo xaraf ka kooban yahay oo xarafka alif ba ta asaas loo xisaabinayo intaas markaad 10 ku dhifato ilaahayna uu sii laabo uu ku barakeeyo malaayiin xasanaad laga hadlaaya laba waa maxay quraanka saddex sadaqada maadaama wax walbo la bixinayo dhan waxa ugu khayrka badan uu noqonayo sadaqada maalmahaas dadka qaarkood waxaan dhahay la suga qaar ayaa raba mise dacwo inay deen bixiyaan waxaan dhahay la suga maalinta axad iyo wixii ka dambeeyo 200 300 $100 inta hartay ilaahay subxaanahu wa tacaala hana waafajiyo xarabna bishaan aan qabsanay bishaan dhamaadkeeda 20 waa maalinta ciid aan filayn haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yiraahdo يوم الفرح ما أنتاس عيدنا وكفرحنا حنكلو كفرحنا بس الدعوة ودينتي لقبحي إلهي إذن كيس إن شاء الله فمساعد كان جوجو إمام كان كاه وحنكلو رباد كان حسوسيو صدقة ماشي اللوغو باهي بدين هيكون بحين تاذا أيكو أجر بدنتا سيدا إمام ابن القيم ويري رادي مركب على هاسي ماشي دايما أو كالي سيدا ماشي الدعوة أو كالي إيو مساجدها كالي dad dhiban oo kale oo xaaladooda aad u culus tahay oo kale raadi sadaqada kale qofka muuminka waxa lagu yaqaan wax meesha ugu ajar badan oo raadiya waa qof aad u aqli badan sababta wuxuu rabaa fursadaas inaysan dhaafin asadaqa waa sadaqada midda saddexaad midda afaraad barakallahu fiikum qiyaamul leylka maalintaasi oo maalintaasi habeenkeeda إن أد إلهي سبحانه وتعالى أد أكعبه أدات كعجتنا الحمد لله أو إلهي واحد ربط أد ويدسته ضد أيام مراد بضن له وقت وقفي عن واحد ويدسته وقت أسوأ قضب كافرات وقيام الحبين كستو ومالين تاسي طبعا كمان الموضة إلهي دتي سأكع إلهي دتي سأكع وحاقودن باي أو صاحرتي أنا qofkii oo fursadaasi sameyn kara culimada waxay tilmaamaan haddii aad ogaato qof oo xaajo leh oo dan leh oo dantiisa adiga aad u guddo ama qof dantaas gudi karo aad ku xirto waxaad la mid tahay adoo masaajidka rasuulka calayhi salaam ku i'tikaafay waxaad la mid tahay adoo masaajidka nabiga calayhi salaam ku istaagay qiyaam waxaad la mid tahay adoo saa'im ah 30 maalmood oo sooman oo ilaahay subxaanahu wa tacaala intaasoo nooc oo ajar ah uu ku wada siinayo ilaahina uu kugu jeclaanaya intaas kalima ilaahina garbu kugu noqonaya marka waxaa raadisaa 10 maalmood qof xaajo gooni leh oo adiga aad u gudi kartid tusaale qof aad deen lagu leeyahay adiga deenta kama gudi kartid laakiin waad ogtahay qof waxaad raadinaysaa deenta ka gudi karo ama dhowr qof oo deenta ka gudi karto oo weli si sir ah saasa ku khayr badan qofkii deenta ku lahaa ayaad ogtahay waxaad u tagaysaa qofkii si sir waxaad u leedahay hebel oo deen kugu leh oo deen aad ku leedahay deentiisii waatan hanana sheegin waxaan rabnaa ilaahay inaan ugu dhowaano laakiin waxaad u sheegtaa deentiisii in la guday ka war qofkaasi ilaahay ugu jecel yahay dadku ilaahay ugu jecel waxaa ka mid ah qof farax gelinaya qof mu'min ah qalbigiisa farxad nin ayaa waxaa dhacday cudur khatar ah oo wadnaha ku dhacay dhakhtarku wuxuu yidhi haddaan maalmo gudaheeda aan wadnahaaga aan la qalin oo xididkaasi aan la daweyn waa ku dhimanaysaa waxaana la yidhaahdaa laab furan in la sameeyo dhakhtar waxaa jira oo khatar ahaa
oo isbitaalkiisii howshaas qabanayay laakiin 400,000 waa $500,000 lacag ku dhowaa ninkana waa faqiir waa ma haysto lacagtii sheekadii xaafadda markay ku dhex faaftay nin oo maalqabeen ahaa ee gaartay alla ninkaasi tawfiiq ilaahay waafajinayo fiir ninkii dhakhtarka inuu u tagaa wuxuu yidhi lacagtaan kuu shubayaa ninkaasi familkiisa ka farxi hooshana gal ma hubtaa haa lacagta waa badantahay waa intaas anaa shubaayo waxbaan ka walwali dhakhtarkii familkuu wacay wuxuu dhahay lacagtii waa la shubay ninkii hala ii keen camaliyadii waxay noqotay ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo awooddiisa operationka ama camaliyadii oo lagu guulaystay ninkii markii guriga la keenay 5 ilmooduu lahaa ilmihii waxay bilaabeen waa boodboodayaan ilmo yaryar farxad maamadii way kala badbadatay aabihii caafimaad qurux yaa sameeyey howshaan iska dhaaf dhakhtarku wuxuu waxbaha weydiinay allahu akbar waqtiyadaas waa waqtiyada la rabo qofka inuu la beegto tobanka soo socdo axkaam yar marka 2 daqiiqa iyo harta waqtiga igu dhamaaday axkaam yar oo ah wax fadli badan oo haddaa samaysaan ilaahay idinka iyo caruurtiina uu idinku cafinayo maalmahaas 10 ah horta hal muxaadaro laguma soo koobi karo 10 maalmood waxaa ku jirta yoom alcarafa maalintaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dembi dhaafayaa oo naarta ku xoreynaya oo ka xoreynaya khalqiga ugu badan oo ilaahay naarta ka xoreynaya maalintaas marka sooma yooma carafa maalintaasi yuusan ku dhaafin waa sunno waay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay tirada ugu badan ilaahay maalintaas inuu xoreynayo waxaad ku dacaysataa ilaahu igu dar maalintaasi kuwa la xoreeyey waa kow sooma maalintaas maalin ciid waaye habeenkeeduna habeen ciid waaye sidna cumar wuxuu dhahay maalintaas ciidee noqotay waxaa soo degtay waa maalinta diinta ilaahay u dhamaystiray allahu akbar dadka meelo kale ay wax kala raadsadaan anagana ilaahay wuxuu siiyey diin dhamaystiran aan waxba ka maqnayn dowladaha islaamka oo najaxay oo dhan diintaasoo dhamaystiran ay dadkooda ku xukumeen ilaahu dowladda soomaaliya waafaji madaxdeeda diinta islaamka 100% inay nagu xukumaan madaxweyne ilaahay tawfiiqda waafajiyey ra'iisul wasaare ilaahay tawfiiqda waafajiyey waxaad ku garanaysaa kitaabka ilaahay ee maxkamadaha ay wada dhigayaan kitaabka iyo sunnada lagu xukumaya goorma la dhamaystiray yoom carafa ahayd maalin weyn waay maalmahaasi waxaa ku xigto marka yoom naxr waa maalinta 10aadka waa maalinta ciid in la gowraco xoolo in la gowraca ayaa sunno ah الأضحية ليراهدا إلهي سبحانه وتعالى قفك وحود دمبي دافا يا دبعد ديق حولها أقورعيست إنتو سنقولك كل عن وإلهي كود دمبي دافا يا هداد حل ناف أقورعي كرتو إلهي درس أقورع ولي صومالي أدر بس إنك عصره ولي واحد أدرتان ميالو دادك جوغا عن عدنا كورحين نين عن أدعي يا جيرو oo shalay ilaa maanta aan duceynay wuxuu ila soo sheergareeyay tuulo aan dadna ka warhaynin oo dayacan kelmadda si u tahay dadkeeda dayacan waxa ka muuqda muuqaalka ayaabays ilaahay dartiisu dhahay sheekh waxa dadkaad u qaban karto u qabo waxaan u qaban karay waa u qabtay laakiin waxa ula jeedaa ka waran dadkaasi tuulada degan oo naaf aad u gowracday neef $150 maleena maaragtay ama waxaa laga yaabaa 2 neef inay ku noqoto waxaa shardi ah qofkii wax gowracayo waxaan ula jeedaa oo laga rabaa in maalinta bisha dhalato ilaa maalinta 10aadka ciddi ma jari karo timo ma iska guri karo waa qofka kaliya waa ehelkiisa kuma jiraan مثلا aniga aan gowracayo oo ehelkayga u gowracayo iyaga lagama rabo timahooda way jari karaan marka cidada iska jari karaan madaxa way xiiri karaan ama way gaabin karaan tabaaraka Allah taa timaha oo
oo maaragtay maqaarka xitaa way ku jiraan marka axkaam gooniya ayaa jira axkaamtaasi qofka inuu dhaqan geliyo waa iyadoo kooban ilaahan waafajiyo maalintaasi يوم العرفة maalinta ciidana يوم العرفة waxay leedahay wax fara badan oo fadaa'il ku qarsoon waxaan ahnay koo xitaa waxa la yiraahdaa يوم الحج الأكبر waa maalintii weelada xajka waa maalinta الحج عرفة حديث waa rasuul sallallahu xajka dhan waa carafo lah maalintaas waa maalinta ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka carafa joogo iyo kuwa sooman dadka xajka jooga ma soomi karaan laakiin kuwan joogan oo dhan inay soomaan waa sunno aad u weyn shan sifo maalinta ay leedahay koo waa maalin weyn يوم عرفة waa maalintii maaragtay kitaabka la dhamaystiray waa ciid weyn iyadoo maalinta hore dhaca ciidda dheh ama ciid weynay sayidna cumar ciid ku tilmaamay maaragtay maalin la soomay waaye oo sunna ay tahay in la soomo afar dadka maalintaasi cibaadaysanaya ama sooman ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ka xoreynayaa cadaabta badankooda ilaahay nagu daro dadkaasi shan ayaamu dhikr waa maalmaha loogu digriga oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala rasuulkiisa uu noo sheegay maalinta ugu culus si gooni ah loo sheegay ka mid tahay marka intaan kusoo koobayaa waqtiga iga dhamaaday dartiisa waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin weydiinaya aniga iyo nafteeda iyo intiinaba in ilaahay maalintaas u noo waafajiyo maalmahaas tobanka ilaahay noo waafajiyo maalintaas carafana soonka ilaahay noo waafajiyo soonka waxaan ka tegay qofkii soomi karo 9 maalmood inuu soomo ayaa fadli badan oo maalinta carafa ay ku jirto qofkaan soomi karin waxaa fadli badan in isniin iyo khamiis iyo maalinta maaragtay inkastoo maalinta isniin ku soo beegnaanaysa maalinta carafa uu soomo qofkii kulli aan wada soomi karinna maalinta carafa aysan ka tagin intaas waa xusuusin ilaahay subxaanahu wa ta'ala dambigana ha dhaafo khayrka ilaahna waafajiyo ilaahna cafiyo ilaahay jannada ha nagu kulmiyo sidoo halkan nagu kulmiyay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh